adiga aan ku weydiiyay imse qof ayaa taqaanaa dabeecad wanaagsan maskax furan balse laakiin nolosha ka dhac dadka qaar way indhala yihiin iyaga oo indha qaba adigoo weli koray ah ayaa doonaysaa in aad guursato noloshaadu qaabkay u eeg tahay xumaan iyo wanaagba waxa saameyn ku yeeshay Soomaalidu waxay tiraahdaa talada aad ku qaadan weydo 12 jir 30 jirkaaga ayaad ka qoomamaysaa naftu ma jecla in la xakameeyo gaar ahaan marka aysan mas'uuliyad weyn aysan nolosha aad u dul saarnayn waxaynu jecelnahay in aynu waqtigeena iska qaadano iska baashaalno waqtigeena ku raaxaysanana inagoo wax aynu sameynano in aynu mustaqbalka natiijo fiican aysan noolahayn haddana waynu sameynaa marka aynu eegno dadka aynu jecelnahay aynu rabno sidoo oo kale oo haysto waxyaalaha aynu jecelnahay waxa hubaala ee aynu isku raacsanahay in aysan sameynin waxa aynu sameynayno hadda si ay u helaan waxay hadda haystaan aniga laftarkaygu waxaan marar fara badan oran jiray dadka aan rabo inaan ku daydo si uunba iiga caqli badan yihiin waxa ay qabanayaan ama ay iga aqoon badan yihiin waxa ay qabanayaan ama waa dad naftooda aad u adag ama waa dad la caawi maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago dhammaan waxa aynu nafteena ka dhaadhicinaa in aysan midna toona saxsanayn dadka aynu jecelnahay inaynu noqono sidooda oo kale waxay leeyihiin hal shay halkaas shay waxa weeyaan waxay leeyihiin sharciyo waa maxay markii koobaad sharciga qof walba si uu u yaqaan sharciga waxa marar far badan laga yaabaa inaad ka maqashid meelaha siyaasadaha TV-da iyo buugaagta iyo waxbarashada balse laakiin maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago waxa la yiraahdo sharciga qaab ka duwan sad hore u taqaan sharcigu waa jiheeye iyo xakameeye inoo sahla inaynu guuleysano sharcigu marna wuu ina jihayn oo wadada aynu u socono ayuuna oran dhankan u leexo marna wuxuu inaga xakameyn waxyaalaha qaar wuxuu ina oran doonaa shaygan ma samayn kartid oo laguma ogola anigu isaanti sharcigan ugu jeclaa waa sharciga afraad adigana sharciga ku cajibiyay commentiga nagula wadaag is sayska hoose ee nolosha canjeeradu sida ay u kala sareyso ayaa loo kala ridaa aynu isweydiino maxaa hadda muhiima oo u baahanahay in aan barto si noloshayda mustaqbalka ay u noqoto mid waxtar u leh adigoo weli koray ah ayaa doonaysaa in aad guursato maxaa horeeya markii koobaad ma in aad markii koobaad guursato mise markii koobaad in aad soo noqoto nin naftiisa iyo qof kale ku filnaan kara waxaad doonaysaa inaad lacag fara badan aad hesho balse laakiin weli ka hadda ma taqaanid sida loo maamulo $10 waxaad doonaysaa inaad dhisato nolol lifestyle ah oo aad u qurux badan balse laakiin weli ka hadda hal hanti ah ma dhisan iPhone cusub dhar cusub gaari cusub saacad cusub adiga oo weli 3 bilood oo joogto ah dididkaaga aan maalin Soomaalidu waxay tiraahdaa talada aad ku qaadan weydo 12 jir 30 jirkaaga ayaad ka qoomamaysaa ka fikirista mustaqbalku waa dilaa ma waxaad doonaysaa inaad maalin walba ka fikirto qaabka aad u talaabsanayso waxaan horeysiiyay markii koobaad midigta mise waxaan horeysiiyay bidixda ilaahay nolosheen wuxuu ku dheeli tiray waxa la yiraahdo caado taasoo inoo sahashay in aynan mar walba ka fikirin waxa aynu qabanno gidaarada dhisanayso gadaal waad ka toosin kartaa balse laakiin seeska ama waad burburin ama dib ayaad u dhisi sees nooceeya ayaan hadda dhistaa si ay noloshaydu mustaqbalka ay u wanaagsanaato waqtigii corona uu jiray dad fara badan aad ay uga cabanayeen corona halka dad kalena ay u arkayeen waqtigii corona fursad cusub oo nolosha ku soo kordhay waxyaalaha nolosha ka dhaca dadku in ay si kala duwan ay u arkaan waxay ku xidhan tahay qofku qaabka uu arkayo nolosha taasoo weliba ku xidhan qofku xogta uu hore u sii haystay iyo xogta ka maqan uusan haysan dadka qaar way indhala yihiin iyaga oo indha qaba ilaahay nimco ayuu ku siiyay lixdii lixaad ayuu ku dhameystiray nimcadaasi kaliya inaad iska haysato maaha waxay u baahan tahay nimcada inaad u raadisid xogtii ku sahli lahayd inaad lixdaada lixaad aad isticmaashid sida ugu waxtarka fiican numberkan dadka qaar waxay u arkaan 9 dadka qaarna waa 6 inaad aragto 9 waa xogtada hore sii haysatay inaad arki weydaa 6 waa xog ka maqan noloshaadu qaabkay u eeg tahay xumaan iyo wanaagba waxa saameyn ku yeeshay xogtii aad hore soo haysatay inaad si kale u eekaan weydaana waa xog ka maqan haddaba haddii aadan ku qanacsanayn noloshaadu qaabkay tahay maanta isku day inaad xogta aad haysato aad dib u bedesho oo aad raadiso sees kale oo nololeed inaad dhisatid si aad nolosha indha ka duwan indhihii hore aad ugu arki jirtay aad ugu aragtid ereyga noloshaada halis ayay ku tahay marka aad halis badan tahay waa marka aadan waxba haysan inuu nin dambi jiifi uu ku dilo oo uu dhaawac ku soo gaarsiiyo iyo nin la yaqaana inuu dhaawac ku soo gaarsiiyo waxa hubaal oo door bidaysa ninka la yaqaana inuu ku dilo waayo ninka la yaqaano waxaad u tagi kartaa tolkiisa iyo ciddii uu ka dhashay kuwaasna waxay ku siinayaan dhaawactirkaaga balse haddii uu ku dilo ninka dambi jiifkii cid aad u raacdo ma haysatid adiga ayaa jeebkaaga iska daaweyn maanta waxaad haysataa doorasho inaad aabaha wax weydiisan karaysid adeerka wax weydiisan karaysid hooyada wax weydiisan karaysid laakiin ninka aan haysan doorashooyinka aad haysato adigu ninkaas wuxuu ku qasban yahay in uu shaqo tago dididkiisana uu maasho doorashadu way ku nooleyn kartaa balse waxay kaa dhigaysaa daciif iyo in aad qof ku tiirsanaatid mar walba sababta dhalinteena ka dhigta inay u fikiraan sida ay u fikiraan waqti xaadirkan waxa weeyaan waa doorasho ay haystaan taas oo ay kala dooran karaan inay shaqo tagaan iyo inay xaafadda iska joogaanba ilaa iyo inta ka gaarayaan 40 jir
nolosha marka laba shay la inoo soo bandhigo mar walba aynu qaadano ta adag taasoo inoo sahli karta inay naga dhigto qof adag. xanuun loo geeyey dib isku eegid waxay u dhigantaa koriin. koriinku waa qofka oo qaladaadkiisa ama qaladaadka dadka kale wax ka barta markaana sharciyo ka sameeya si qaladaadkani uusan mustaqbalka u dhicin ama xataa haddii uu dhaco sharciyada uu isticmaalo si uu xal fiican ugu helo. waxaan u haysan jiray qofku nolosha inuu ku guulaysto inay kugu filan tahay inuu qofku dabeecad wanaagsan uu yeesho iyo inay maskaxdiisa furnaato. adiga aan ku weydiiyey imse qof ayaa taqaanaa dabeecad wanaagsan maskax furan balse laakiin nolosha ka dhacay. inaynu koriin nololeed aynu samaynaa waa lagaga maarmaan in aynu mar walba marxalad walba oo dhacda dib aynu isku eegno oo aynu ka eegno mar walba laba cidhif maxaa qaldan oon sixi karayey iyo maxaan samayn karayey si aysan qaladkaasiba uusan u dhicin. dhibaato waxaa la xaliyaa ka hor inta aysan dhicinba. fursadaha nololeed ee kusoo mara yaysan kugu dhaafin adoon fursadaha dib u eegin si aad sharciga uga samaysato noloshana aad u fahanto qaabka ay u shaqayso. haddii aysan jirin nolosha in aynu sharciga ku dhaqanno waa in aynu diyaar u noqonnaa in aynu dhibaatada iman doonta aynu la sayska aan dhisanayaa muxuu yahay doorashada daciif ay kaa dhigtaa inaad ku tiirsanaato dadka kalena way kugu qasabtaa. qaabka aad nolosha u arkaysaa waxay ku xidhan tahay mar walba xogta aad sii haysatay. in aad nolosha qaab ka duwan qaabkaad u aragtaana waxay ku xidhan tahay xogta adiga kaa maqan. dabeecad wanaagsan iyo maskax furnaan midna toona kuuma sahasho inaad koriin nololeed aad samayso. koriinka nololeed waxaa kuu sahli kara waxyaalaha nolosha ka dhacaya inaad sharciyo u samaysatid. sharciyadan inaad u isticmaashid kuwo kahortag kuu noqon kara iyo haddii ay dhacaan kuwo aad isticmaali karaysid.